waxyaabihii ugu la yaabka badnaa ii soo maray nin dadka iska xoogsatada ah xamaalanayay maalinna waa xamaashaa maalin waa iska seexdaa xaasiya ubatoonna ma lahayn duruuftaa iska qallabsan ayuu iskaga noolaa oo dee dhabarkiis ayuu ku xamaalanaya maalinna yoomiyuhu helaa maalinna waa waaya iyadoo duruuftiisu ay sidaa tahay unbaa telefon ku soo dhacay waxaa la yidhi islaan dibadaha ku maqan oo aanu aqoonba waxna aanay ka dhaxayn ayaa waxaa la yidhi qaraabadaa ugu dhow walaal ma leh oo ubad ma leh oo nin ma leh oo ilmaadeer ruma ma leh oo mid labaad ma leh waa qof qaraabo guuda adaa dad ugu dhow baa la yidhi adeer baad u tahay adeer afraad iyo mid shanaad iyo waxay tahay mooyaane islaantii muwaadinad bay ahayd akoonnadii baa u buuxay waxaa la yidhi lacag aan laga sheekayn karin baa ku yaalla halka uu dhoofay oo lacagtii ayaa loo soo xisaabiyey adigu si uu usoo qaatayba ninkii magaalada iska joogay maalinna xamaalanaya maalinna qadaya wuxuu yidhi waa mii baan u baxaya xoolaan dhaqanaya lacagtuu sito xoolahay u goynayso wuxuu ku helayaa bilo xoolo dhaqmaatii uu doonaya marka maalin walba hal baa meel loogu sheegay ilmo hebel baa qaalin iibinaya uu lugaynaya 2 buurood buu ka dhacaa 20 kilomitir buu socdaa haddana 50 kilomitir buu dhinaca kale u lugeeya tuulo heblaha xoola lagu sheegaa xoolo dhaqmaatiya meeshii wax lagu sheegaba u dhaqaaqa dhowr bilood isagoo xoolihiisu geegeynayo kaashkiina meelahan u yaallo ayaa ilaahay tiisa u keenay isagoo aan ka raaxaysan isagoo aan ka nasan isagoo aan ubad ka dhalin isagoo aan waxba ka dhaqan magaalada markuu iska joogay uuna iska nasanayay xaalkiisuna waa iska wanaagsanaa laakiin isagoo dhowr bilood buura fuulayay oo isagu isleeyahay maantaad adduunyadii heshay bay tiisii u timi xoolihii iniba meel bay taallaayo waa ammaano oo weli xoolihii uu doonayay islama helin wuxuu ku jiray yaa haya xoolo kaashkuna magaalada u yaal akoonnada ugu jira marka waxay ku tusaysaa xaalku siduu isu badbedelay duruufuu ku jiray ilbiriqsi telefoon baa ku signayd lacag intaa leeg baad heshay ilbiriqsi bay isku bedeshay haddana noloshii uu doonaya uu ku talagalay